بسم الله الرحمن الرحيم. waxaan rabaa inaan u bayaaniyo bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan bulshada gobolka Bay howlgal balaaran oo ay sameysay laanta baarista dambiyada gobolka Bay lagu soo qabtay waxyaabaha maandooriyaha ah oo muddooyinkan badan guud ahaan dalka Soomaaliya gaar ahaan gobolada dalkaba dhibaato culus ku hayay laanta baarista dambiyada gobolka Bay oo fulinaysa amarka taliska ciidanka booliiska Soomaaliyeed ayadoo u hoggaansan amarka taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed ah la dagaalanka waxyaabaha maandooriyaha ah waxay laanta gacanta ku soo dhigtay sida idin muuqata 40 kilogram oo xashiish ah xashiishkaas oo xog iyo xoraan badan oo ay laantu raadisay ku soo heshay in lagu haayo gudaha magaalada Baydhabo kadibna howlgal ay sameysay gacanta ku soo dhigtay guud ahaan bulshada gobolka Bay gaar ahaan dadka reer Baydhabo waxa la farayaa in waxyaabaha maandooriyaha ah ay magaalada Baydhabo iyo guud ahaan gobolada koonfur galbeedba ay mamnuuc ka yihiin isticmaalkooda cid lagu arkana la horgeyn doona sharciga wixii maxkamadda ay u go'aamisan uu qaadan doono ganacsatada gaadiidleyda cid kasta ee isku dayda inay soo qaado ka ganacsato waxyaabaha maandooriyaha ah waxa laga qaadi doonaa talaabo sharciga waafaqsan waxaana la tiigsan doonaa maxkamadda ku shaqada leh waxaana la farayaa ganacsatada iyo guud ahaan dadka ka shaqeeya waxyaabaha maandooriyaha ah in waqtigiinu dhamaaday wixii hadda ka dambeeyay ay tahay inaad ka digarogataan oo aad raasataan ganacsi kale oo banaan tanina bulshada caafimaadkeeda ay u daran tahay mana aqbali doono in bulshadayadii loo isticmaalo waxyaabaha maandooriyaha hadduu ganacsi ah lahaa haddii la cabi lahaa iyo haddii wax kale ah laayeen guud ahaan ummadda Soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa waxyaabaha maandooriyaha ah in ciidanka booliiska Soomaaliyeed gaar ahaan taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed oo amar ka baxshay in guud ahaan dalka laga suuliyo bulshadana waxaan ka codsanaynaa inay gacan ka siiyaan ciidanka guud ahaan booliiska Soomaaliyeed gaar ahaan laanta baarista dambiyada gobolka Bay oo u istaagtay una sameysay wax gaar ah oo ka shaqeysa la dagaalanka waxyaabaha maandooriyaha ah taas muhiimadeedna maanta dhadhamiseen oo waxay gacanta ku soo dhigtay intaas xashiish la eg oo gali lahaa gudaha magaalada haddaba waxaa la farayaa cid kasta ee isku dayda inay ka ganacsato xashiishka in talaabada sharciga ku aadan laga qaadi doono ciddii isku dayda in ay la dhuumatana aan laga dhuuma karin ciidanka booliiska Soomaaliyeed